كاغا كغلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الفيسبوك أصحاب فيسبوك waxaan u malaynayaa waa markii nolosheedii ugu horeysay oo aan live soo galo waxaan ka raali gelinayaa wixii qalad oo iga dhacay iyo wax laale wixii technical problem waxaan rabaa walaalayaal wixii maanta ka bilowda kadib markii TV-yadii iyo telefishinadii ay waxa weeye sidii aan wax u niraahno ay wax u sheeg waayeen ayna noqotay inay waqti badan ugu qaadato waxaan ku qasbanaaday inaan maskiin kalkaalka facebooka social mediaha aanu ka wada xiriirno waxa hadda ka dambeeya barnaamijkayga marqaatiga nool iyo wax laaleeyo wixii murti iyo madadaala iyo wixii wax weeye afkaar ah ciil iyo cara iga badatay halkaan ka wada soconaynaa waxaan rabaa marka maanta topic-ayagu wuxuu yahay maamul goboleedada waxa weeye dhibaatada maamul goboleedada iyo dhug la'aanta shacabkayaga marka waxaan rabaa haddaad imaqlaysiin maadaama aan farsamada bilow ku ahay haa ii soo qora hadduu codku idiin soo galay bravo hadda waxaan ogaaday inaannu si fiican isku maqlayno aad baad u mahadsantihiin asxaabta soo dhowaada waxa weeye waa mar kale iyo magaaladeedii muqdisho waa markii ugu horraysay oon live soo galo waa markii waxa weeye noloshayda aan go'aansaday in aan maaragtay halkaan aan ka wada xiriirno hadda ka dambeeyana biidni illaahi alkariim waxay noqonaysaa in aan telefishin iyo midna loo baahan waxaan leeyahay soo dhowaada yaa marxaban bikum mucaarad iyo muxaafad labadaba waxa weeye waxaan leeyahay welcome ku soo dhowaada sidaydabana anigu waxaan aaminsanahay dhaliishu inay tahay sixitaanka waxa ugu fiican inay tahay laakiin yesman iyo dad waxaa jira haddii comment yar laga soo qoro isla markaa qofka tuurahaya ama block saarahaya anigu laakiin waxaan ku raaxaystaa dadka dhaliilsha waxa weeye waa muraayadii ma aha inaad maaragtay muxaafid kale ay noqoto afkaar kala duwan weeye the difference waa beauty of life in la kala fikrad duwanaadaa waa waxaad iyo aad u fiican laakiin waxaa qalad oo iyadana meesha aan ku jirin waxaan macno samaynayn maxaa ilaahay awliye kaaga dhigay inaad ugu qabsato wax macnaa oo samaynaysa ma jirto asxaabta soo dhowaada waa mar kale iyo magaaladeennii muqdisho waxaan ku soo noqday waddankaygii hooyo there's nothing waxa weeye east and west meel waxa weeye Soomaaliya waddankaaga lamidu ma jirto inta kale waxaa tahay qurbo joog waa waxa weeye dareen ku joog baa tahay waxaanu leenahay waxa tahay magaaladii lagu wada midoobay ficiladii xumaa ee dhacay ee ka soo iyo go'aamadii ka soo yeeray golihii maamul goboleedada haraadigii Tigreega maxamed ilay iyo gabre waxaan rabaa in aan maanta halkaan aan fikirkayga ka soo dhiibto Soomaali wax badan baan la hadlay Soomaali wax badan baan u sheegay Soomaali waxa weeye barnaamijkii ugu dambeeyay oo hadda telefishinka RTN aan ka sii daayay waxaan ku qatimay gabay waxaan ku qatimay la yiraahdo waxaan ku qatimay gabay aan Axmed Madoobe kaga hadlahayo afkiisa iyo uurkiisu inaysan islahayn waxa weeye ficilka afka wuxuu ka leeyahay wax ka duwan uu ka samaynayo waxaan ka sii layga wareysanayay koow markuu bilowdayba barnaamijku waxay noqotay sidii aan sheegay ayay ku dhamaatay laakiin hadda Soomaalida ayaan daro qof inta ku yimaado kule warniyow arrintaasi arrintii aad sheegtay way dhacday ma ahayn arrin badane wuxuu ahaa gabaygii ugu dambeeyay ku qatimaya arrin badane oogada lala oo caabuq talinaya caqli caafimaad lagu hubo oo orod yar baa dhaama oday reerka lagu aaminay oo agabaryeynaya agoontii caruuraha ninkii ururiyaa dhaama ugu baan asluubiya lahayn ila xir maamuus leh haba agab yaraatee carmeli edab labaa dhaanta eebada intuu kugu mudo araxda kaa toogto af macaano kula ooyayo uurka kuu dabaya abees micida kugu aasay ood aragtabaa dhaama inankaan amaalkooda gudin aabba iyo hooyo adoogi lanaad inan yar oo idif labaa dhaanta ergab mid ah islaam wada jiroo kala adeegaayo alla ilaahay colaad qaawan oo la ogyahaa dhaanta inkastoo ogaali'idda adoo gugu irmaanaado dooggaan orshoonayn ebaraha dhaanta kaliil omasaha dhaanta isagoo ammaantaada wada uubna kuu qodaya laba afle kuu imaanayood ehel la moodayso ulajeeddo gaarana wato cadow ku aargoosto aqoon darane iimaan leh oo ku oggol baa dhaama
waxaan kula hadlahaya shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegahayay afka iyo uurka ninka la yiraahdo Axmed Madoobe inaysan islahayn maxaa ka soo baxay waxa ka soo baxay wixii la ogaa federalismka wax weeye arintan federalismka war federalismku waa fitnatul qarni waxa weeye waa kala go'eena 4.5ku waxa weeye waa kala jarkayaga waxa weeye qofka inna akramakum indallahi atqakum shacabka Soomaaliyeed waxa weeye waxay isku dhaami karaan ilaaha subxaanahu qaadirka waxa weeye ninna isagoo bara boqorkay ma uumine baxri shiiqweyskii dadka diinta bari jiray bahooska alla noo dhigay bal saqaawdiin daya ma barba ma buuxa mise waaba birimo dadku baacdan dheeriya war marka 4.5 lagu leeyahay ood ogolaanayso marka lagu leeyahay federalism ood ogolaanayso resultigoodii waa maanta ayuu yimid hanaqaadka dawladda hanaqaaday adduunka aan wax la qabsanay annaga iska dhaaftaayadii intaan kaamilanay siyaasadeedii dibadda aan u kala dabqaadaynay geeska Afrika oo dhan waxa way isbedelkii 8 February waxa ka bilowday maanta inuu inta tago ilays u noqdo lagu wada daydo ummadii oo dhan is qabsato raas dumeero la soo celiyo walaalaha Djibouti dhulkoodii la soo celiyo حتى كوا سياسيين آخر السبنك حتى الدولة دوي كل عليه هرنتاس وافدود إنه كده دكتو ورمحا أنا الراس دميره هدان هلو هدان دول كي جمعنا ولا لا يجبوت أنا هلو إنا كده دقي إنا كداهو محا إنا بكده دقي بقى هاي ما هو فدراليزم كي سومالي وحندين شيء جيا this is the result تيجي دي أرنتا فدراليزم كي واكن ما أنت أيو يمد وادوتشدين waxaan idin sheegayaa oo mar labaad inaan rabo shacabka Soomaaliyeed aan rabaa inaan ku celiyo war maantayto waxaanu leenahay choice dastuurkii wali waa qabyo war 4.5 laga noqdo federalism war dadkan waxay maanta lugaha ku dhagan yihiin qof iyo cod in la gaaro dadkan waxay lugaha ku dhagan yihiin inaan dhulkayga soo ceshano dadkan waxay lugaha ku dhagan yihiin bal fiirsha waxa weeye malagu hadile Michael Keaton iyo mahigaaba naloo qaatay bal fiiriya markuu tagay oo uu tagay Puntland iyo Somaliland ayaa waxa weeye tukaraq dagaal ka bilowday Michael Keaton markii hadda Kismaayo uu tagay asagoo gabaabsi ah ayay waxa weeye aad u jeedaa waxay go'aankii uu siiyay waxay ahayd si gumaystaha gacantiisa dib loogu soo celiyo dawladana road map iyo indaad case qodob la yiraahdo dib loogu celiyo ayay waxay noqotay shacabka Soomaaliyeed nimankii aad ogeydeen oo warlordkii casriyeysnaa aha oo SSDF iyo SNM iyo SBM iyo SSST oo kala aha oo jamhadaha aha waxay dhaheen dawladda shaqo kuma lihin war waxaas ma wax loo dul qaadan karaa marka aad tiraahdo war maxaa dhacayna waxa weeye saddex baa lagu xalaaleeyaa marka la yiraahdo waagii hore hadda isbedelkan Ethiopia ka sokay ka dhacay wixii ka horeeyay markii la yiraahdo war Ethiopia iska dhicino war gabraan iska dhicino ma Ethiopiadan waa Ethiopia cusubo waxa weeye maanta tabar ma lihino waxa lagu xalaaleeyaa xageena 1964kii markii la leenahay 4 sano kaliya aanu jirnay oo waxa weeye xalana ay dhimanayeen oo la ogaad intaas oo magaalo aan ka qabsanay intaas oo wadan 77kii inta maanta PhD iyo aqoonyahan noo joogta iyo dawladnimada aan haysan miyaan haysan ma aanan haysan waxa weeye waxaan hayn dad curdun oo 4 sano kaliya jira iyadoo oo waxa weeye boqor najaashi aad ogeyteen oo nabi maxamed kaleey salaatu salaam saxaabada rasuulka ku soo dhaweeyay barakallahu bi ardal habash la yiri oo waxa weeye waligood la gumaysan ayaanu dhagaha ku dhufanay markaas waxaana la dhihi jiray laga gadi jiray marka si weyn misfin iyo malas iyo gabre iyo ay joogeen waxa la dhihi jiray waxa weeye hanagu taabanina fidnada maanta waxa weeye Michael Keaton oo tagaya iyo waxa weeye mala sanaawi maamulkiisa meesha ka baxay ayay waxay rabaan maqalle iyo Tigray in inta u hiiliyaan ay political bargain waxa weeye nalagu galo oo inta nalagu gorgortamo aan waxa weeye iisheeg aan ay jilbahana qabsadaan maamul goboleedadaas marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa maanta live-ka u soo galay warnimayo fidnadan federalismka waxa lagu xalaaleyn jiray waxay dhihi jireen hadda waa la istiriray waa la kala aamin baxay qof walba inuu meeshiisa nabad ka dhigto war laba ceeriin ku qaybsatay bisayl isku kuma timaado waxa weeye mar hadii wixii la kala qaato oo lahaanshihi uu dhamaado oo qarannimada ay dhamaato adeer waxa weeye haba yaraatee wax meesha ku yaala ma aha barnaamijyo badan baan uga wada hadli doonaa arintan maamul goboleedada waxaan leeyahay hadda ka hor baa nin xamaaliyo wuxuu yimid Soomaaliya markii 91kii ay dhacday burburkii oo sinaan ay wada dhacdo cagabarar u dhaco gaaja dhacday baa mid wuxuu yimid meel niman xamaali ah oo gaari ka dajinaya sonkor markaas yiri war anigana xabada la ii saaro xamaali baan ay saroorada ka joogtay hal ii saaro iska daayay markii 100 kiilo jawaana dhabarka loo saaray ayuu inta liiciyay adeer iga qaad kan maaha xamaaligii aan
xamaaliga aan aqaanay karo ma ahane waxa weeye suufkaan xamaali jiro fudude iga qaad sonkorta ma qaadi karee siyaasad xumadoodii waxa weeye maantayto raggii meesha iskugu tegey waxay noqotay inay cimrigooda gaabiyaan waxaa noqon doontaa waxa weeye inay carab isbriin dhacdo waxaan u sheegi doonaa ugu baaqahayaa dadweynaha weliba aan uga hambalyaynahayaa walaalaha reer puntland wiilkii soo qoray madaxweynuhu waddanku hal madaxweynuhu leeyahay iyo dhallinyaradii ku taageertay waxaan leeyahay noolaada waxaan idiin sheegayaa idinka ayaa iska leh awoodda shacabka iska leh nimankaas waxa weeye maantayta waxay hor taagan yihiin in horumarka iyo Soomaali inay midowdo iyo inaan bahalkii taladeedu hal meel ka go'do iyo inaan adduunka hal qaran aan uga qayb qaadanay diidan yihiin shacabka Soomaaliyeed marka waxaan ugu hambalyaynayaa warkaca عرب سبرينو دان كعتانك waxa weeye kicitaanka ama banaanbaxyada carabtu hal wiil oo Tunisian ah oo intuu shaqo doontay waayo isgubay bay ka bilaabatay war miyaanaan arkayn wax badaha ku dhamaanaya war miyaanaan arkayn future-kiina in la isku haysto war miyaanaan arkayn waxa weeye inay nimankaanu ay qadadoon yihiin aysan qadiyad lahayn war miyaanaan arkayn nin weyn baa inta yimaado shirka wuxuu la soo hadlayaa intaasoo 100 baana la siiyay adeer dekadii Kismaayo yaa kugula xisaabtama adeer dhuxushaad iibinaysa yaa kugula xisaabtama adeer dakhliga international community ay ku siiyaan yaa kugula xisaabtama adeer Michael Keaton wuxuu rabaa inaan dawladda arago markii uu tan halkii jawaano Muqdisho loo keeno oo Soomaaliya oo dhan ka wada dhaxaysa Kismaayo inta la geeyo wax weey waa lagu wada xisaabtama adeer waxa weeye yaa ka aaway maamul xumadooda nimankaanu nin daad qaday xumbo cabsikay weeye waxaan maanta fursaddan uga faa'iideysanayaa shacabka Soomaaliyeed inay uprising sameeyaan meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa shacabka dhalinyarada waliba waxa la isku haystaa waa mustaqbalkiini waa future-kiini magaalada Muqdisho waligeed baa iyada xornimadu ka bilaaban jirtay reer Muqdisho waa inay banaanbax dhigaan waa inay uga soo horjeestaan waa inaan waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nimanka nabad wax uga doonin waa inay nimankaas waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay ergamida islaam wada jiro kala adeegaya alla ilaahay colaad qaawan oo la og yahay dhaanta madaxweyne maxaa nimankan laga barbarayaya mar hadii ay waxa weeye wixii la ogaa ay la soo ay wax la soo dhutinayeen haday banaanka soo dhigeen maanta ay dhaheen anagu qaran ma aaminsanin xukuumadda nama haysato constitution-ka ninka jabiya asagana kiisa xunka waa la jabinayaa dastuurkiisa la jabinayaa bal alxamdulillah what goes around comes back around dhibaatada ku dhacday madaxweyneyaalka xogaankoodii ayaa markiiba naqdiyay waan u hambalyeenayaa عربي iyo waxa weeye magaalada la yiraahdo halkan shirka uu madaxweynuhu ugu baaqay anigu waxaan jeclaan lahaa waxa weeye kala bax kitaabada qabe in aan nimankaasu waxa weeye banaanka in lacagta laga jaro in international community-ga la yiraahdo ma dawlad baan nahay mise dawlad ma nahin anigu waxaan qabaa dadkaas waxa lagu naacinaya baadil baashalaba lagu naacinayay maamul goboleed bay ahaayeen waa inay hadaysan xisaab celintii soo sameyn ووزيرك ماليته وسن سمين إن حرير اللي سوعلين وحنا نقول آمن سنة هاي إن وحوي رجالها اللي يجويه وحنا نقول آمن سنة هاي بقول كي بقول شعب كالصومالية today is our day ما أنت وما أنت يدي واحد يستين حكومة واحد يستين دولة واحد يستين شعب كي أو وحول بإلا براروجا كم يهمسن وجدد أنو قيلين وجدد أنو وحول بوشيجين وجدد أنو لهين صومالية كع وح الله عليه وح أنو لهين وحامش والناس عنيا waxa weeye waxaanu rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay isku tashtaan shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa maanta dhalinyaroy hadaa dihi lahaydeen war hal kaliya war maxay tahay Mexico intaasoo madaxweynaha hal asbuuc lagu riday waxa weeye wadanka aad u jeedan carab waxa weeye dhalinyaradeedii ayaa kacday waxa weeye inkasta oo boqolkiiba boqol waxa weeye shalaba qalad ay ahayd in lagu taageero maamul goboleed in la taageero federalism in la taageero 4.5 oo iska iloobo wax tasmiu bihamdillahi jamiica wala tafarraqu oo wada jirkayga la iska ilaabo annagu maanta waxaan u hadlaynaa shacabka fiiri ninna wuxuu rabaa maamul goboleedadii ragna waxay rabaan Kismaayo iyo Soomaaliya Kismaayo iyo Gaalkacyo iyo Garowe inay Soomaaliya ka gooyaan iyo Baydhabo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka madaxweynuhuna waxay rabaan inay raas dumeero keenaan waxay raadinayaan jigjiga waxay raadinayaan goday waxay raadinayaan himiladii Soomaaliyeed waxay rabaan horumar iyo qof iyo hal cod waxay raadinayaan in ay shacabkan Soomaaliyeed maanta qiyamkiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa ay soo celiyaan bal ka waran ninka raba inuu aniga miyaad aragteen sidii maamul goboleedka 4.5 iyo u yimaadeen ma aragteen wax dambe oo ka hadlaya mooyahay liya marsabad iyo wajeer miyaad aragteen walaalayaal barnaamijyadaas oo dhan waxaan rabaa
inaan waxa weeye isbeddelka Ethiopia ka dhacay walaalaha Soomaali galbeed inaan maalin ka hadlo waxaan u baahannahay waxa weeye inaan ka hadalno maxay Soomaalidu soo ahaan jirtay waxaan u baahannahay inaan barfasoorada waxa weeye boorsooyinka waaweyn oo waxa weeye kuwooda fiican waa u amaal gudaynaa laakiin kuwooda xun oo lagu biilo barakaca shacabka lagu biilo ayaan ka hadli doonaa waxaanu live kanin wuxuu noqon doonaa biidnillahi alkariim mid fikirkayguna waxa weeye aan kugu soo gudbiyo adinkuna aad iga bogatiin mucaarad iyo muxaafad waxaan leeyahay gacmo furan qalbi goba walaalnimo aan gooyo ku soo dhawow nin kasta fikirkiisa waa xor waa mucaaradi karaa qof kastana waxa weeye wixii qaldan waad iga sixi kartiin maanta intaasaan live u soo galay muqdisho mar kale isku soo noqod wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay inaan dhulkayga hooyo inaan waxa weeye aan imaado maamul goboleedada waxaan ku soo qatimayaa raggii meesha ku shirayow ninbaa wuxuu lahaa rati marka reer guuraaga Soomaalidu way iska taqaaniin ratigiiba marka u tago wiil yar buu u diray mar allaale iyo markii uu wiilkii u diray wiil yar buu u diray ratigu wiilkiiba soo cayrsaday war maxaa ratiga ku dhacay ratigu wuxuuna iska gurgurshaah oo fiican oo maaragtay markaasaa wiilkii yaraa mid kala loo diro ka roono asagina waa soo cayrsaday maalintii maamadii baa tiri warbal odagii waxay tiri warbal iska joogo bal anaa tagaye bal wax yar iisu ayadii lafteedu soo cayrsaday odagii baa aaday odagii markuu tagu ratigu ku dhawaado odagiina soo cayrsaday odagii wuxuu yiri ratiyow kuriska weyn oo kugu arko iyo caaway waxa weeye hawdka meesha aan soo degnay oo dhurwaale haddaad anagina soo cayrsatay ya dhurwaaga ka dhicin doona war waxaan idiin sheegayaa maamul goboleedku shalay maanta maaha Kenya iyo dawladdu waa wada socdaan ninka la yiraahdo Ethiopia iyo Abiy Ahmed iyo Maxamed Abdullaahi Farmaajo waa wada socdaan Michael Keatina waqtigiisii waa dhamaaday waxa weeye Djibouti walaalaheena iyagaaba soo dhiseen qarankaano hadda waxay rabaan inay ku naaloodaan qarannimo Soomaaliyeed oo taaba gasha waad u jeedeen maanta inta waxa weeye safaaradoodu inay walaalaheen u mahad dadaalka aan ku jirno ay ka mahad celiyeen waana ku mahadsan yihiin waana la shukr ala waajibo hadda waxa weeye Djibouti waa Djibouti Soomaaliya oo Djibouti waa Soomaaliyana waa Djibouti waxa weeye dad dhiig isku leh waxa weeye waxa isku qabtaan waxba la iskaga mahad celiyo marka xagaad aadi doontiin war hooy waxaan idiin sheegayaa waxaan idinkaga digayaa oo aan idinkaga digayaa walle iyo bille waxa sheega waa la arki jiray waxaan ka baqayaa halkii inay ku dambaysiin waxaan ka baqayaa inaad halkii gabar ku dambaysiin waxaan ka baqayaa in aad yaa laytani kunta turaaban aad ku shalaytatiin waxaan u gali doonaa nin waliba meesha uu yahay maqaamkiisa Axmed Madoobe huisi yaa yaqaana muxuu yahay muxuu Soomaaliya u dhibay xagee ka yimid dhibaatada ma kaligiisba mise waxa weeye waa wax ka sheeyo oo waxa weeye waa second generation oo waxa weeye shacabka Soomaaliyeed dibka lagu hayo aabihi wuxuu ku lahaa legacy Axmed Maxamed Islaam baa la yiraahdaa Axmed Madoobe aabihi Maxamed Islaam baa buu isku magacaabay aabihi awowgii magaciisa wuu tuuray Islaam buu qaatay sababtu uu qaatay ma taqaaniin Soomaaliyeed cadaaduu joogay habareertay buu ku guursaday Soomaaliyeed inteeda kalena wuu gaalaysiiyay asaguna waxa weeye Maxamed Islaam buu Sheekh Maxamed Islaam buu la baxay inta kalena gaal uu arkay Axmed Madoobe wuxuu rabaa maanteeto halkii Soomaaliya ugu khayr badnayd halkii Soomaaliya ugu khayraadka badnayd halkii Soomaaliya inuu inta tago bal iska dhaafo beeshiisii guud iska daayay kuwa kale ku xigka iska dhaafay sabkalaankiisa iska sii dhaafay intii yaran xataa inay qaylinayaan oo asagoo afkaartiisa ma ahina aysan wax kale ka socon waxaasoo dhan ka wada sheekayn doonaa waxaan idin leeyahay haddee awliyo iyo asxaabta Facebooka waa isku badan doonaa insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa billahi tawfiq